waxaana ku baxay lacag dhan $147 milyan oo dollar. Diyaaraddan ayaa xitaa waxaa laga baadigoobay gunta hoose ee badda. kulan wacan ku soo dhawaw kulan kaloo xiiso leh. diyaaradda MH370 ayaa la leeyahay muddo 10 sano ah. diyaaradda shirkadda duulimaadka Malaysia ee Boeing 777-200 ayaa habeen waxay ka duulaysay magaalada Kuala Lumpur waxayna u jeeday magaalada Beijing ee dalka China iyadoo ay saaran yihiin 239 rakaab iyo shaqaalihii diyaaradda. kadib waa la waayay. xiriirkii ugu dambeeyay ee laga hayo waxa uu ahaa midkii duuliyihii diyaaradda Zahari Ahmed Shah saacadihii hore ee bishii March 8 sanadkii 2014 40 daqiiqo kadib markii ay ka duushay magaalada Kuala Lumpur. kadib way aamuseen, balse diyaaraddu waa la waayay inkastoo saacado ay sii duulaysay sida wararku ay sheegayaan. malaayiin dollar ayaa lagu bixiyey sidii loo raadin lahaa burburkii ka soo haray diyaaraddaasi, balse laguma guulaysan. diyaaradda MH370 ayaa waxay noqotay waxyaabihii ugu waaweynaa ee dhanka duulimaadka casriga aan wax jawaaba loo haynin ama aan la ogeyn siday u dhaceen. diyaaradda luntay ayaa waxaa saarnaa muwaadiniin u dhashay in ka badan 12 waddan, inkastoo in badanoo kala bara ay u dhasheen Shiinaha. rakaabkan ayaa waxaa ka mid ahaa koox farshaxanistayaal ah oo Shiinees ah oo sawirradooda ku soo bandhigayay Kuala Lumpur, 2 Iraaniyiin oo ku safrayay baasaboor Yurub oo been abuura, iyo qof Indonesia u dhashay oo ku sii jeeday magaalada Beijing si uu halkaa shaqo uga bilaabo. lamaane Maleeshiyaan oo ku jiray bisha malabka iyo qoysas yar iyo carruurtooda. qaybta duulimaadka diyaaradda ee hore waxaa saarnaa Zahari oo 53 sano jir ahaa oo aabbee 3 carruur dhalay, waxaana uu ku biiray diyaaradda Malaysia sanadkii 1981 wuxuuna ka mid ahaa duuliyaashii ugu khabiirsanaa. garabkiisa waxaa fadhiyey Faariq Xaamid Axmed, loona fasaxay inuu noqdo caawiyaha duuliyaha diyaaradda 777. qaybta shaqaalaha diyaaradda waxaa joogay shaqaalaha diyaaradda Malaysia, waxaana hogaaminayay Comere Patrick Gomez oo u shaqaynayay diyaaradda 35 sano. kadib markii ay reer Malaysia maqleen oo ay ku soo tooseen warka in diyaaradda la waayay, ay aad uga naxeen. inkastoo ay jiraan dhibaato dhanka dhaqaalaha oo la xiriira shirkadda Malaysia Airlines, ayaa haddana aan la soo tabin wax cillad farsamo ah. waana shirkad aad iyo aad ay u xiiseeyaan dadka Malaysia. kadib markii ay saacado ka soo wareegtay, ma jirin cid hayso war dhammaystiran oo ku saabsan wixii ku dhacay diyaaradda. naxdintii shacabka ayaa waxay isku beddeshay mid aysan qaadan karin. magaalada Beijing, qoysas ayaa aad iyo aad uga murugaysnaa dhacdadaasi oo ay doonayeen inay ogaadaan halka ay jaan iyo cirib dhigeen dadkoodii. jawaab la'aanta saraakiisha shirkadda duulimaadka Malaysia, maamulka duulimaadka rayidka ee dalka Malaysia iyo si guudba dowladda Malaysia ayaa waxaa aad iyo aad ay u noqdeen dad dunida dhan laga dhaleecaynaya, isla markaana su'aalo badan la iska weydiinayay sababta aysan jawaabo uga bixinaynin dhacdadaasi. isla markiiba kadib markii diyaaradda la waayay, Malaysia waxay isku dubariday baaritaan oo ay ka qayb qaateen in ka badan 20 waddan. inkastoo dadaaladii ugu horreeyay ee diyaaradda raaditaankeeda ay saareen badda koonfurta Shiinaha iyo badda Andamaan, haddana waxaa loo jeestay dhanka koonfurta badweynta Hindiya markii natiijooyinka raadarka militariga ay soo baxeen 12 March sanadkii 2014. iyo shirkadda isgaarsiinta Ingiriiska ee Inmarsat ayaa la wadaagtay xiriiro otomaatig ah oo u dhaxeeya dayax-gacmeedka iyo diyaaradda 777 oo soo jeediyey diyaaradda, waxayna noqon kartaa in dhanka koonfurta badweynta Hindiya. baaritaan bilaawa ayaa dhinaca hawada lagu sameeyey badweynta, wuxuuna bilowday 18 bishii March, wuxuuna baaritaankaasi gaaray dhul dhan 4.5 milyan oo kiiloomitir laba jibaaran. dadaalka caalamiga ah ee hormuudka ay ka ahayd Australia ayaa ku guuldaraystay in la helo wax caddeyn ah
oo la xidhiira diyaaraddaasi wuxuuna dhammaaday baaritaankaasi 6 toddobaad kadib. waxaa kadib loo jeestay dhanka galbeedka Australia, meel xeebta dalkaasi u jirta 2,800 kilomitir. baadigoobka oo ku fadhiya ilaa 120,000 kilomitir oo isku wareega waxaa ka qayb qaatay maraakiib, doonyo iyo diyaarado, waxaana ku baxay lacag dhan $147 milyan. cimilada xun ee dhanka badweynta Hindiya ayaa xilligaasi saameyn ku yeelatay oo caqabad ku noqotay barnaamijkaasi baadigoobka oo la hakiyey sannadkii 2017. inkastoo kooxda baaritaanka samaynayeen ay arkeen jajab la xidhiira markab qarnigii 19aad, haddana ma aysan helin wax caddeen ama astaana oo tusaya diyaarad. kadib shirkad laga leeyahay dalka Maraykanka oo lagu magacaabo Ocean Infinity ayaa iyaduna isku dayday inay raadiso diyaaraddaasi halkii ay ku dambaysay, balse kadib 112,000 oo square kilomitir oo ay baadigoob samaynayeen, ugu dambayn way ku guuldaraysteen inay arkaan halkii u dambaysay diyaaradda MH370. dadka qaar ayaa waxay isweydiinayaan diyaaradda Boeing 777-200 oo ah diyaarad aad iyo aad u dheer oo 64 mitir ah, dhanka kalena baalasheedu ay yihiin ku dhowaad 61 mitir, sida loo waayey oo aan loo arkin ilaa hadda. balse badweynta Hindiya waxay ka mid tahay badaha adduunka u weyn, waxayna ku jirtaa kaalinta 3aad. biyaheeduna waa biyo aad iyo aad u fog ilaa 4,000 mitir, waana goobihii laga raadiyey ayay ka mid ahayd. kadib markii la waayey, baadigoob caalami iyo dadaal gurmad ayaa la geliyey diyaaraddan oo ku sii jeeday magaalada Beijing, waxaana ka mid ah meelihii baadigoobka laga sameeyey qayb aad u baahsan oo badda ah, kala bar meel u dhaxaysa Malaysia iyo Vietnam. diyaaraddan ayaa isgaarsiinta iyo xiriirkii aaladda raadarka lumisay 2 saac markii la sii safrayey. sannadkii 2017 ayaa baarayaal u dhashay dalka Australia oo ku howlanaa sidii loo heli lahaa raq iyo ruux diyaaraddii MH370 ee Malaysia ayaa war ka soo saaray baaritaankooda. duulimaadkan oo u kala gooshayay magaalooyinka Beijing ee dalka Shiinaha iyo Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaa la waayey sannadkii 2014. baadigoobka oo ay ku howlanaayeen dalalka Shiinaha iyo Malaysia ayaa waxaa si rasmi ah loo soo afjaray bishii Janaayo sannadkii 2017 kadib markii lagu howlanaa 146 maalmood. koox dalka Australia u dhashay ayaa sheegay inay tahay wax maskaxdooda ka weyn, isla markaasina uusan bini'aadamka qiyaasi karin in diyaaradda la waayey wax xitaa raadkeeda ah. warbixin ayaa lagu sheegay in kastoo loo galay dadaal aan xad lahayn baadigoobka diyaaraddan, in haddana la waayey meel lagu sheego. balse warbixinnada ayaa lagu sheegay in markii dad ugu wardambaysay diyaaraddan lagu xaqiijiyey meel 25 kilomitir u jirta dhanka waqooyi badweynta Hindiya, gaar ahaana halkii laga baadigoobay. diyaaraddan ayaa xitaa waxaa laga baadigoobay gunta hoose ee badda, waana baaritaankii ugu weynaa oo la sameeyey inta la xasuusan yahay taariikhda duulimaadyada adduunka. qaybo loo malaynayay inay ka soo fuqeen diyaaradda ayaa ku soo caariyey meelo ka mid ah jasiirado ku yaala badweynta Hindiya iyo xeebaha bariga Afrika. meeshan ay baarayaasha ku tilmaameen diyaaradda inay ku dambaysay ayaa waxaa lagu saleeyey qiyaas laga qaatay dhinaca ay walxaha u dadraacaan iyo weliba xog laga helay dayac-gacmeedyada. dowladda Australia waxay sheegtay inay baaritaankeeda dib u bilaabayso oo keliya haddii la helo caddeemo rasmi ah. dowladda Malaysia ayaa hadda waxaa la sheegaya inay suuragal tahay inay baaritaan kale oo la xidhiira diyaaraddii luntay sannadkii 2014 ay dib u raadiso. arrintan ayaa waxay noqotay mucjisadii ugu weyneed adduunka, waxaana ilaa iyo hadda lala yaaban yahay halka ay ku dhibicday diyaaradda iyo rakaabkeeda. dhanka kale, nin u dhashay Britain oo ah injineer dhanka duulimaadyada hawada, sannadkii 2021 ayaa sheegay inuu ogaaday halka ay diyaaraddaasi ku dhacday. Richard Godfrey ayaa aaminsan in diyaaradda Boeing 777 ay ku dhacday badweynta Hindiya meel 2,000 mitir galbeedka ka xigta
magaalada Perth ee dalka Australia. Diyaaraddan ayaa raadarka laga waayay bishii Maaj sanadkii 2014 xilli ay ku jirtay duulimaad, kadibna baaritaan iyo gurmad heer caalami ah oo la sameeyey ayaa la waayey raq iyo ruuxba halkay diyaaraddaasi ku dhacday. macal dadkeedii xitaa waa la waayey burburkeeda. diyaaradda la waayey ee MH370 ayaa waxay noqotay waxyaabaha ugu cajiibka badan dunida oo lala yaabay, isla markaana ilaa iyo haatan aan jawaab loo haynin.